هدف بعد نولش كلا هذا نولش هدف كده هداد أصيبته أو ماشي هذا سعتي أتقعدنا وتقولي ستي هديك أنا اللي ما تقولي سنين ولذلك سؤال شو واحد نقول كرتا وهدف كان نولش كلا يعني ما كان محيي ما إنه النوع بنابا ما إن شهادة لقاطابا ما إن العقل هلابا ما إن مقعية ما مصل هلابا لايف بربوس كاقوم حوية هدف كاد لاضي قول كاد نلاشة محاضو النوش إناد محي حقيقي الصو قفك بنادك وإنه هدف ليه ماله الصعودة والربا إنه قاعدو قف النولي إنه وحونا مجرو نولا وحونا صوته وصوكع دبتنا اللي حدا سنة مركز قاعدة حباشي هلو قيو that's not a life نولا ما هتاسي قيمة ما صمينيس وحين السويدين أنا مركها هدف كأنه نلاش كلا نوام محي سمر كأنه كوجولي سنة أنا هبل نلاش يبو كوجولي ستي مركل لوايانا أنا هبل نلاش يبو خسارة إلا والله ما ضامدون هذا نلاش هدف كلا هذا ما هذا الصعطة هذا يشرتو ماشي مركز قاعدنا وحنورنا نوا جوليست مركز قاعد ويدنا وحنورنا يوو جول درست مو جوليسن success ما قاعدين إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحينا وشيء قورت اللي قوليستا قورتيتي وحكى الله شيء إنه الله تانية هدف كلا قال يوحيه وحلا ينوشة قيدتك أنت قوليستي أنت خسارتي قرآن كأنت صاع ضدك صاع أراري أو كور رمية الفائزون أنت صاع ضدك كور رمية الخاسرون وانا معناها دبته ونولش ليه مركز لبداسي كلا قرط ربي سبحانه وتعالى مركه نولش هي هدف كده هي وحورن هي قوش دبا من قياس بالوياله يعني نولش هدانو تشيرين ثرمومتر اما بارامتر اما وح لو قياسه هداند هيسنين يعني غوريغا دhererkiisu waa imisa waa inaynu haynaa waxaynu ku qiyaasno markaynu haysano miqyaas la saaro ayaynu isla garanaynaa dhererkiisu intuu yahay laakiin hadii waliba isha ku eego wax sax ah soo bixi mayso marka wax la qiimeynayo wuxuu doonaba ha ahaade waynu jiraa waxaad haysato oo barometers aad leedahay markaad kaatigarayso waxaas uu waa la qiyaasi karaya waa la gaari karaa inuu jiro rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay kullu nafsin dha'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور سورة آل عمران بقول سيدتني يشن بقول سيدتني اللي لبدا يدود يسكحي ربي وحليه سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت نقوح كستو انه لغيرو ددمينيا منتهى الحياة الدنيا ويان بالالي انت دونت تشوك way dhamaanaysaa وإنما توفون أجوركم waxa laydin wafeynaya laydin dhameystiraya adduunka waa laga yaabo wax yar yar oo min amalika inaad dhamiso سواء كانت positive iyo negative kay doonaysa ha noqoto waxyaabihi aad shaqaysay wax kamida haday qadhaadhaydna waa laga yaabaa nolosha wax kamida inaad ka soo dhadhamisay haday macaanidna waa laga yaabaa nolosha wax kamida inay soo dhadhamisay laakiin waxa la yiri taas iyadu way dhamaanaysaa absolutely waa dhamaynaysaa لكن waxa lagu dhameystirayaa baa la yiri amalkoo dhan wixii aad qabato dhan abaal markiisa waxaad wada helaysaa inma tuwafaw wafa baa lagu isticmaalay waxa la idin oofinaya la idin dhameystiraya ujurakum yawm alqiyamah baa ilaahay yiri maalinta qiyaama alhayat alukhra hayat alukhra aakhira markaynu gaadhno nin walba shahaadadiisa la siinaya qalin jabintaadii adduunka inta joogtay imtixaan baad saxaysay papers baa lagu dhiibay waxa la leeyahay waxaad adduunka ku hayso dhan side ku doonaha ahaado haddaad madax ahayd waraaqad buuxinaysay
haddaad lacag haysatay waraaqaad buuxinaysay haddaad faqiir ahayd waraaqaad nolosha dhammaanteed imtixaan bay ahayd aad ku jirtay imtixaankaagaasi resultkiisii jawaabtiisii waxaad helaysaa baa lagu yidhi maalintaad qiyaamahaysa soo taagto ayaa lagu dhiibayaa jawaabtii imtixaanka saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu yidhi faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz ninka qudha guulaysta waa kanuu baan rabbi yidhi naar ninkii laga dhufto zuxzix ninka naarta haf laga soo siiya laga ilaaliyo laga durkiyo oo wa udkhila aljanna janna la geeyo kaas baa ilaahay leeyahay faqad faaz miqyaas alfaws markaa waa kan goormuu qofku guulaystay wuxuu guulaystay markuu naar ka badbaado ee janno galo ayaa rabbi tilmaamaya ama adduunka intaa joogteen waxaad guula ku sheegayseen oo dhami wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay ku xigsiiyey nolosha adduunyo waxay ahayd bidhbidhka lagu kadsoomo nolosha adduunyo gebigeeduba bidhbidh lagu kadsoomo bay ahayd baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala aayadda ku xigtaa ilaahay markaa wuxuu yidhi waan idin imtixaamaya xoolaha nafta ayaan idinku imtixaamaya gaaladaa la idinku imtixaamayayo ahlu kitaabka iyo waxaa la mid a war badan iyo mushrikiintaba adan kaiiran baa ka maqli doontaan baa ilaahay yidhi wax badan oo idin dhiba adyad badan baa nimankaa ka maqli doontaan baa ilaahay yidhi ee wain tasbiruu watataquu sabirkii taqwada loo baahnaa haddaad la timaadaan waa casmi lumuur baa lagu tilmaamay idan ayuha alikhwa الحياة الدنيا تنتهي بالموت نولش الدنيا دمانيسا غيرانا كو دمانيسا مغزى الحياة مركا وحويا هو الابتلاء تانا نكون والله purpose كدانتا لغا ليوان لو يتحامه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم بإلهي أيكم أحسن عملا أدونك هو ابتلاء إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا أدونك وحلوها يوردم وامتحان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أدونك امتحان وحانت كو امتحانات وحاد قبرش أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى وحانا لقوه اتحاميا امتحان كالرسم قاهي وبالعبادة تكليف واقع وابتلاء لكن هو ابتلاء بالعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ابتلاء سيادك وجهك دون يهقوي ماضو قرآن كإلهي لبا النبي بك ورمك لبدا النبي باسكو صفة الله شاقة لكن قرآن كل لبدا النبي وحي نوغ الشاقة ووحك لدرقصا نبي سليمان قرآن كي قصص كيسين بدن ما مغشه iyadoo laga waramayo inuu boqor ahaa oo afaf badan garanayay oo quraanjadu waxay ku hadlaysaa garanayay oo mantaqa tayr shimbiruhu waxay ku hadlaan garanayay oo jinka loo sakhiray kuwa badda quusay iyo kuwa meel kale u boodaba bal kuwa leh aqoonta maanta dunida taala ka sarreysa oo in arshu balqis laga qaado saba oo falastiin la geeyo oo ilbirqsiye lagu geeyo technology-ga dunidu maanta ma awoodo technology-ga dunidu maanta wuxuu awoodaa cod in ilbirqsiye lagu geeyo hadalkaaga milliseconds ayaa dunida tarafkeeda kale laakiin samacada ay hortaan la intuu tuuro oo iyana as a signal or electron loo tuuro xagga kale cidi kama receive garayn karto technology-ga wali ma hayno laakiin nabiyullaahi sulaymaan alladhi indahu ilmun min alkitab ana atikaha muxuu yiri قبل أن يرتد إليك طرفك عرش بقى لقى تروح حاجة كلامك صار داعي أنت أنا البرق سجاجو أو تكنولوجيا أنت اللي جوا هيست بلا إلهي وحكبر ملكا لا ينبغي أحدا من بعدي بقرطو يا أنا قد ضبضي عندما والله يتحامل
imtixaankii hore wuxuu u arkay inaanu aad u guulaysan buu isdareensiiyey inuu odhan karnaa hadduu ereygu sax noqdo oo waa markuu lahaa innii axbabtu xuba alkhayri can dikri fardihii iyo wixii iyo abahadiisii inuu wakti cibaado inay yaro dhaafisay oo kale uu yidhi bahalada gebigoodaba goorgooraca markaasuu ilaahay wuxuu ka dalbaday imtixaankan ka weyn in la mariyo oo ah mulka laa yanbagii axadan min bacdi nebi sulaymaanka waxaasoo dhan agtiisa la dhigay wuu guulaystay ilaahay muxuu ku sifeeyey nicma alcabdu wawaritha sulaymaanu wawaritha daawuuda sulaymaanu may ayadahay mise wawaritha sulaymaanu daawuuda may wawahabnaa daawuuda sulaymaana nicma alcabdu inahu awaab baa ilahay yidhi nebi daawuud sulaymaan baanu siinay baa ilaahay yidhi dabeetana maxaa la yidhi nicma alcabdu ayaa ilahay ku tilmaamay awaab inuu ahaa iyo nicma alcabd okay noloshii la ibtixaamay wuu ku guulaystay waxaa la siiyey darajada nicma alcabd qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebi kale nebigaa kale wax kaloo ilaahay qur-aanka kaga sheegay ma jirto ilaa iyo inuu bukay oo jiifay mooyaane nabiyullaahi ayuub qur-aanka meel kastoo aad ku aragto bukaan baa laga warramaya sunnada nebi maxamedna axaadiistay culimmadu soo arooriyaan waxay tilmaamaysaa 18 sannadood inuu bukay oo jiifay oo xanuunsanayay oo la nacay isagana ilaahay muxuu sifeeyey inna wajadnaahu saabira maxaa ku xiga nicma alcabdu inahu awaab sulaymaan wuu guulaystay baa la yidhi nebi sulaymaan nebi ayuubna wuu guulaystay labadooda imtixaanna waa laba imtixaanoo kala nooc ah mid bejka siyaasadda iyo mulkiga iyo maamulka iyo xoolaha loo dhiibay kaasaa lagu itixaamo dabeetana wadadii taa laga rabay buu mariyey dhan inuu islaamiyo dad dhan inuu diinta soo wixii laga rabay buu fuliyey waxaana lagu sifeeyey nicma alcabdu inahu awaab ayuub isaga inta qur-aanku inooga sheegay waa la itixaamay lafihiisaaba lagu itixaamo isagu xanuun iyo dhib uunbaa ku dhacay waa jiifsaday waa la wada nacay waa laga tegay halkaasuu jiifay إني مسني الشيطان halkaasuu ilaahay bariyay ilaahay wuxuu ku sifeeyey isagana inna wajadnahu saabira nicma alcabdu innahu awaab idan hadafka kama dambaystay waxa weeyaan ma xaqiijisay ilaahay addoonnimadiisii ha huwa imkaaniyaadka ilaahay ku siiyey ku xidhanta imtixaanku dadka bar baa u haysta in khilaafo la dhiso un inaynu ku imtixaamanay kuma imtixaanin ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay laa yukallifu allahu nafsan إلا ما آتاها بالليل نفنا إلهي ما يتحامو وحسيي موياني انت اللي ديبي اديك نولش لغاغا سو بيغاي بيجك ما دورتيد إلهي با دوره inaad madax noqon iyo inaad miskiin noqon inaad maal qabeen noqon iyo inaad faqiir noqon adigu beejka dooran maysid laakiin adigu waxaad dooranaysaa saad u maamulaysaa beejkaaga jawaabaha imtixaanka marka lagu dhiibo maxaad ku qoraysaa waxaad ku qoraysaa baad ama ku faa'iisaysaa ama ku dhacaysaa labada nabi quraanku uu tilmaamay labadaba ilaahay wuxuu ku sifeeyay ni'mal abdu innahu awaab labaduba waa guuleysteen midi wuxuu ku guuleystay inuu bukaankiisu ku safro ilaahay taacad ugu ahaado saa quraanku inoo tilmaamay midina wuxuu ku guuleystay dhan inuu hogaamiyo oo jin iyo insiba leh oo shimbir iyo xayawaan bale oo ciida ka badan wato walidaalika ayuha alikhwa عبادة إنه امتحان كنا عبادة إنه امتحان كنا إنه إلهي عابدنا عبادة هو من الفطرة قفك بني آدم كهي لكن لمن توجه باب ما شاء الله يا وتشيدين يسحقيس تتكبر بها ودود عابدة أفرأيت من اتخذ إله هواه هي إلهية المامية ومن الفطرة ولذلك ما تاريخ يهنده بلوتارك تاريخيا كي جريك هوريبا waxa laga sheegay wuxuu yiri qad wujidat fi taariikhi mudun bila husul wa mudun bila qusur wa mudun bila madaris ولكن لم توجد ابدا مدن بلا معابد بولي تاريخ بني ادم marka la baaro in xafriyaad qod meel kasta samee waxay dhaadaan waa la helay magaalooyin aan qalcad lahayn ama qusuur iyo daaro waaweyn lahayn ama iskuul ku oolin laakiin magaalo meel lagu caabudo aan lahayn lama hayay bay leeyihiin
dad waliba amaakin lilcibaada fi taariikh waa joogaa. walidalik buu isaga laftiisa marka le wuxuu tilmaamayay ina madiinatun bilaa ardin taquumu calayha ashal min qiyaami dowlatin bilaa ilaah buu lahaa. magaalo aan dhulba laga dhisin, dhulba loo haynin lagu yidhaahdo dhis ayaa ka fudud buu yidhi dowlad aan diinba lahayn in la yidhaahdo dhis. noloshu aynu joogno waa imtixaan. imtixaanka waxaa guulaystay ninka sidii la rabay uga jawaaba. miqyaaska guushuna waa faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata faqad faas qad aflaxa man zakaaha waman yuطic illaha warasuulah faqad faaza fawza cadiima. miqyaas waa kaa. miqyaasku maaha intaad xoolo yeelatay, maaha inta aada maamushay, maaha intaad magac iyo maamuus yeelatay. nabi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo meel joogaa saxaabadiisii qola soo maray, nin baa soo maray. ma ra'yukum fi hada buu yidhi marka, waa ninkaasi muxuu idin leeyahy, bal ka warrama. waxay idhahdeen ninkani waa min ashraafi الnaas, hada wallahi xariyun in khaطba an yunkax wain shafaca an yushafac. waxay yidhahdeen ninkani waa dee duqeyda magaalada, odayada reerku ka mid yihi, wuxuu mudan yahay hadduu ergo galo in ergadiisa la aqbalo, hadduu gabadh doono in loo guuriyo, yacni waa nin warkiisa hadduu hadlo bay yidhahdeen in la dhegaysto, saasuu mudan yahay. nabigu iska aamusay calayhi salaatu wasalaam. mid kalaa soo galay meeshii soo maray, markaasuu kii kale yidhi maa ra'yukum haada, waar kaasna bal ka warrama muxuu idin leeyahay. waxay yidhaahdeen kani ilaahay rasuulkiisiiyo waa min fuqaraa'i lmuslimiin, de kani waa wax mahaysatada muslimiintu ka mid yahay. hada xariyun in khaطb an laa yunkax wain shafaca an laa yushafac wain qaala an laa yusmac bay dhahay. dee ninkani waa iska masaakiinta ilaahay meelaa iska marmaraysa buu ka mid yahay. hadduu war sheegana nin cididheg u taagaysa oo dhegaysanaysa ma aha. hadduu reeraha gabadh weydiistana nin loo guurinayo ma aha. hadduu ergo galana ergadiisa cidi dhegaysan maysa bay yidhaahdeen. nabigu wuxuu ku yidhi markaasi hada khayrun min mil'i اlardi mila hada. kaasi buu nabigu yidhi wuxuu ka khayr badan yahay dhulka muggi oo kana kana idinku ammaanaysaan dunida muggeedoo kaasa kaa miskiinkaabaa dhaama. xadiiska bukhaari wariyey, muslimkana waa ku yaala. xadiidkaasi saxiix ahi waxa uu tilmaamaya dunida muggeeda oo ashraaf ah oo magacyo maamuus leh, miskiin ilaahay caabudaa isku dhaama baa la leeyahy. waayo maqaayista bini aadamka lagu qiimeynaya lagu kala gedisan yahy. miqyaaska dhabtee markaa wax lagu qiyaasaa wuxuu yahay, nabi maxamed baa wuxuu yidhi ruba ashcaha madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi laa barah. xadiidka saxiixu muslim ku yaala ruba ashcaha, nabi maxamed wuxuu leey badan mid timihii boodhaysteen ama basaasaysan yihiin oo madfuucin bilabwaab ah, albaabada aan laga furin, dan cidi ka lahayn, laakiin low aqsama cala allahi la abara. waxaan jirin hadduu ku dhaarto idhaha wallaahi baan ku dhaartay saasay noqonaysaa, ilaahay dhaartiisa u rumeeyo ay sidii noqoto. low aqsama cala allahi la abara, ilaahay baa dhaartiisa u bir yeelaya. hadduu dhaarto idhaha saasay noqonaysaa, sidii alla ka dhigaya buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. ayuha alikhwa, qur-aanku wuxuu inooga warramayaa qisaska qur-aanka waxaa loogu talagalay inaynu ka cibro qaadano. qolo qiimeynaysa nin dadkii ay la noolaayeena oo abhadiis iyo isla weynidiis iyo wixiisii muujistay. qur-aanku waxaa ka ramaya qaaruun oo soo baxay. qaaruun waxaa laynagu yidhi qasnadihiisa lagama warramine furayaasha qasnadaha ayaa cusba min annaas aanay qaadi karin baa la yidhi. guruub dada furayaashiisa ma qaadi karaan, maaha adduunkiisa. ninkaasaa wixiisii isku sharaxay oo macrad buu dhigay, uu ku soo bandhiganayo abhadiisii iyo wixiisiibuu soo bandhigtay isagoo meesha maraya. dadkii markaa way eegeen ninkan iyo quruxdii iyo waxa ka muuqda iyo xoole iyo nimco wuxuu haysto. ilaahay wuxuu leeyahy qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya
kuwii nolosha adduun doonaya hadafkoodii maxaa laga dhigay qoladatan ahdaafta bini aadamku kala baxaa ninka hadafkiisu yahay inuu bariis xoogsado dee qiimihiisu waa bariis ilaan wuxuu noloshaba siistay habeen iyo maalinba wuxuu soo jeedaa waa inuu bariis helo marka noloshiisu waxay la qiimatay bariis ninka hadafkiisu wax kale qofka bini aadamka ahdaaftu u nool yahay buu qiimaha noloshiisu noqonaya qaala alladina yuriiduuna alxayaata addunya baa ilahay kuwii nolosha adduun doonaya waxay yidhaahdeen yaa layta lana mithla maa uutiya qaaruunu inahu laduu xadin cadiim bay yidhahdeen bal ma nala siiyo yaa layta jeclaan lahaaye bay leeyihin ama alla maanu hello waxa uu haysto qaaruun oo kale qaaruun bay yidhahdeen waa nin nasiib weyn إلهي قال كلو تلمامي موازين تاكل قد يسبب آدم كو حقوق يمينيه وقال الذين أوتوا العلم والله الثاني إلهي وحقوق تلمامي أصحاب العلم أكسبرتس كينا يقوين كوي علم جلسي كوي هرم حال يلي يريدون الحياة الدنيا صفة وصف إليين ونلش أدون بهدف كودها قال هذا بس صفة إلى دوام حي وقال الذين أوتوا العلم بايلهين كوي علم جلسي وحيد هذين ويلكم ورهوجين ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون إذن ضدك آخرة إلا به وأحسد بن آدم كو بديه إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وبشركو سيدو بدي dadka nolosha intay ka arkaan intan sokatay adduunkan u arkaya qiimeyntooda ugu weyn ay noqoto waxa adduunkan lagu qiimeynayo wallahi ninkii hebela rag buu dhalo soo saarahay laba engineer iyo saddex dhakhtar bay rag noqdeen qiimeyntiisa dhakhaatiirta iyo engineerada iyo inta tan waxa laga yaabaa saddex engineer aan kubkooda way samarin inay laakiin isaga way la weeyeen ilaa ninkii dhakhaatiir iyo engineero waayo dhakhaatiirta iyo engineerada maxaa loo qiimeysanaya lacag bay helaan weeyaan haddii suuq xaadka lacagtu ay qaali ahaan lahayd isaga la isku amaani lahaa ilaa lacag baa la raadinayay engineerka lagama barakaysto iyo tabiibka toona walidalik bini aadamku wuxuu hadaf ka dhigtaa bay ku xidhantay ilaahayna qiimaha dunida weynasiiyo waxay leeyihiin wama alxayaatu dunya إلا متاع الغرور بإلهي يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وارضضوا بالليل إلهي وحي يبوهي وارنب فلا تغرنكم الحياة الدنيا نلشأ الدنيا يدين كذن بإلهي سبحانه وتعالى نلشأ يرى الدنيا أكون ضوخنا ربي وحولي يسوى قيمها الدنيا برية وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أدونك ما هبا ليلي عيار إيا اللهوي لهوي وروا عيار تدتك واوين واللعب وروا عيارتك ويرير أدونك وحلقوا مدى داشو إيا اللعب مو يانا وحكا لما هبا ليلي الدار آخرة با إلهي أيا نولولي شرتاه ده wax garanaysa aakhiriya adduun hadii la soo eego ilaahay wuxuu leeyahay aakhira marka la yimaado kam labistum fil ardi adada sinin badadka la weydiin doona waar dunida inta ay joogteen ka warama qaalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'al al 'aadin baylay maalin ama maalin barkeed baanu joognay cidii wax tirinaysay hal la weydiiyay baylay ilaahay baa waa loo jawaabo waxa lagu yiraahdaa إن لبثتم إلا قليلا كما فوق شيء ثاني وحير باشوكتين بالليل إن لبثتم إلا قليلا إجر باشوكتين لو أنكم كنتم تعلمون رسالة بحكسية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هي آيات كسيدا بايا أدونك قوشي ساشيرين ربي وحوك ورميه مسلمين قوليستي أدونك كان قال إلهي وحيري يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. warkuwa muuminiintaha umaydintu siyaabaan rabbi yidhi tijaaro business cadaabka lagaga badbaado ilaahay rumeeya iyo rasuulkiisa ilaahay dartiina u dirira naf iyo maalba saas baa idin khayr badan baa la yidhi haddaa wax garanaysaan sidaa haddaa samaysaan ilaahay yakfir lakum dunuubakum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم بإلهي هذا صدا يشان إلهي دم بيجن نضافيا جنة ويدين يا يبيره هوستيد وبيال دريريان يجريو في عن يبيره نجادله تبتني له وحدي ذلك اسم شارع واحد ركسر لغة الماما لغة الماما يعني لشرفها بي بعيد طيب ذلك الفوز العظيم بإلهي كاسي والليبان توين بإلهي كاسي والليبان توين وحكى لنا إلهي وصينا يا بليل وحكى لنا حاله شيء وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب يدا لغمضر ذلك الفوز العظيم فكما ترسل فوز العظيم في حاجة سكونا ماضي أما وحاليدين باليري وأخرى تحبون متكلوا أتشعشهم باليري وهم حيكن كلا ينوشع الله وين قالك كحق بضنا نصر من الله وفتح قريب قالك أنا هنا كحق بضتان وحنا فرطان تانا ولا يدون كدري باليري إيادو مركا لغو مدرين إنا يكمي تهي محي قوشا ينكو الرميني إنا يقوشا وين وحبضان كاهم بان كتوسي قرآن قولك لو كورما wuxuu ka waramay qolo mu'miniin oo la gubay mu'min la gubay ma guuleystay mise ma guuleysan bimiqyaasina dawaaba la gubay soomaa ilaahay wuxuu ka waramay fi suurati al-buruj dad mu'miniina oo nin boqora oo dictatora oo kibray intuu helay yidhi anaa rabbigiina oo ay diideen yidhi war anaga ilaahay baa noo rabbiya oo intuu godod qoday dab ku shiday midmid ugu guray dhammaantood godkaa ku idleeyey oo sunnada nebigu waxay waramaysaa dadka sidii loogu gurayey ayaa qof dumar oo umuloo ilmo yar wadata isa soo dul taagtay ilmihii bay u naxday xadiidka nebi maxamed wuxuu sheegayaa waa kuwii calayhi salaatu wasalaam dhowrkii qof ee yaraanta lagaga hadlayo ka mid aha ilmihii yaraabaa hadlaya wuxuu yidhi hooyooy isbirii faynaki cala alxaq hooyo sabir xaqaad ku sugan tahay islaantina waa adkaysatay kuwii la gubay yara ku beertay waa la wada gubay dadka la gubay markuu quraanku ka waramay fi suurati al-buruj was-samaa'i dhati al-buruj wal-yawmi al-maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashab al-ukhdud ilahi ba soo waday waxa lagu gabagabeeyay in alladhina fataru al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu kuwii mu'minka iyo mu'minaadka ba gubay ee imtixaamay ee aan toobad keenin ilahi albaabkiisa balka war dadkiisii inta la laayay wali toobad u ogoli kuwii dadka mariyay ee aan toobad keenin baa ilaahay yiri iyaguna cadaab xariiq bay leeyihiin cadaab waxguba kuwii la gubayna in alladina aamanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhaaru dhalika al-fawz al-kabir baa ilaahay yiri qoladaasina waxay leedahay jannooyin hoosteeda beeradereerayaan laakiin ذلك الفوز الكبير بقى قلادي هوري maxaa la yiri ذلك الفوز العظيم قلada tanna maxaa la yiri ذلك الفوز الكبير guusha weyni waa taas baa ilaahay guusha kabiirka ahi waa guuleysteen maxay ku guuleysteen miqyaaska wuxuu ahaa faman zuhziha 'an an-nar wa udkhila al-jannata faqad faz buha samaha miqyaaska dhabtahay adduunkii ha ka yimaadaan adduunkan waa dhimanun ama halagu gubo ama sariirtaada ku dhimo ama xabada lagu dhufto ama god ku dhac waa dhiman saad u dhimanayso ba kala gadisan laakiin you will die ugu dambayn waa dhiman ama miqyaaska dhabtahay waxa weeyaan markaad dhimato xagaad u kacaysaa adduunkan intaad nooshay waad intixaamantay haddaad xoolo leeday haddaad magac leeday haddaad maamuus leeday haddaad miskiin tahay haddaad wax garan qof walba waa imtixaaman yihiin
wixii lagu siyaad ku imtixaamanta iyo jawaabtaad ka bixiso mashaakir baatay masaabir baatay aday ku taala haddii beejka adag soo baxa ma sabirtay haddii beejka nimcadii soo baxa ma mahad naqday aday ku taala waad imtixaamantay waxaan oo dhammaan waa wada imtixaan dadkun baa labada imtixaan kala jecel laakiin inta badan imtixaanka adag baa dadku rabbi u soo noqda imtixaanka nicmada ah inta badan dadku rabbiba waa ilaaba kallaa ina alinsaana la yatqa goorma an ra'aahu istaghnaa baa ilaahay ku tilmaama inay tani guultay maxaa tilmaamaya saxaabadiina saasay u arkayeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa kooxii u timi carbeed niman carbeed baa u yimi dabeetana waxay idhahdeen waanu islaamaynaa waxaanu rabnaa inaad cid nagu darto ciddaad nagu darayso waxaanu rabnaa bayna rijaalan yucallimuuna dadna bara alqur'aan wa sunna nabigu calayhi salaatu wasalaam 70 saxaabada ka mid ah oo alqur'aan nimankii la odhan jiraya oo anas ibnu maalika xadiidka warinaya abtigii ku jiro xaraam ibnu milxaan uu ku jiro ayuu nabigu ku daray 70 kanini waa raggii ku caanka ahaa habeenkiina inay qur-aanka akhriyaan oo bartaan oo isbaraan maantiina intay baxaanbay ama soo xaabaysan jireen biyaha masaajidka ay soo dhammaantiina way shaqayn jireen habeenkiina dad cibaadaysto wax bartabay ahaan jireen xaabadiyo waxaa intay soo guraan ayay iibiyaan ahlu sufaha dadka ee masaajidka iska joogaan waxba haysanba iyagaa quudiya nimankana waxba haysane xaabada soo guraya ayaa ahlu sufaha quudiya niman bay ahaayeen adduunkana xoogsada aakhirana cibaadaysta diintana si fiican u barto meesha jooga 70 raggaa ka miduu nabigu ku daray wuxuu yidhi qoladaa u taga oo dadkaa diinta usoo sheega dhexda markay marayeen baa qabaa'il carbeed oo kale oo nimankii waa la qabqabtay waa la laayay ninkii ka mid oo waraaq sida oo ninkii madaxda ahaa isla waraaq u dhiib ayuu yidhi waraaqdan baa nebi maxamed ii soo dhiibay mid buu xagga dambe uga diro wuxuu yidhi waran xagga dambe ka geli waraaqdii markuu isyidhi u dhiib ayaa mid xagga dambe ka yimo warankuu xagga kale uga saara ninkan waa la khiyaameeyey gaalaana khiyaamaysay waana la dilay muxuu ku dhawaaqay markaa xadiidka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy fuztu warabbi lkacba buu yidhi walee guulaysti waaba lagu dilo lagu khiyaameeyey xaggeed guulaysata ninkan waa gaal baa dhakray khiyaameeyey waa la dilay haddana wuxuu ku dhaaranayaa fuztu warabbi lkacba buu leeyahy rabbiga kacbada alaan ku dhaartee waan guulaystay waayo wuxuu arkayaa hadafkii nolosha inuu xaqiijiyey waxyaa ilaahay soo dejiyo nabi maxamed loogu sheegay dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi saxaabadiisii walaaladin waa la dilay wainahum qaaluu waxaanay lahaayeen allahuma abliq cana nabiyana ana qad laqaynaaka faradaynaa cank waradita cana ilaahu nabigeygii waxaad gaadhsiisaa inaanu kula kulanay oo aad raalli naga noqotay annaguna aan raalli ka hadnay warka yagaa inaanu guulaysanay ilaahu u sheeg bay leeyihin qoladii naga dambaysay nabiga gaadhsii saxaabadiisi ay soo ogaato hadafka dhabta ee uu nolosha laga leeyay waxa weeyaan in cadaab laga badbaado jannana la galo qofkaasaa guulaystay walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam baycat alcaqaba markuu saxaabada la galay alcaqaba thaniya bayc alcaqaba thaniya heshiisyadii uu la gelayay ansaarta u timi meel xajkaabaa la isugu yimi waa la wada hadlay ballan baa lala galay ballankay nabiga la galeen muxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ballan kula galeen waxay naftooda iyo maalkooda iyo caruurtooda ka celiyaan inay nebi maxamed ka celin doonaan keen gacanta baa la yidhi saxaabigii ugu yaraayo la socday ascad ibnu suraara yidhi waar jooga war waa iska hubiya waar barrita idin wax ka bedeli doontaana hubiya maanta wali ballan kuma jirtaane saxaabadii la socotay waxay dhahaan war inan yar baa tee iska dhow meesha waa ninkii ugu daayaraaba wiil yar baa tee ka banay baa la yidhi saasaanu nebiga ballan kula galnay maxaanu anana leenahay baa la yidhi
nabi maxamed ma odhan aniga dabadayba madax noqonaysaan wasiiraan idinka dhigaya dowladda wax ka qabsanaysaan magaaladiina caasimadda waddanka noqonaysa midna kuma odhan wuxuu ku yidhi lakum aljanna buu yidhi waxa ay ballan qaadeen haddaa fulisaan laa dowladnimo walaa waa guulaysanaysaan walaa cid bas ka dhicin doontaan walaa magaalo madaxdaa heli doontaan waxba looma sheegi kale waxaa la yidhi waxaa leedihiin janna leedihiin hadafkiinii baa gaadheen waxay dhahaan soo taa gacanta marka waa kula ballamaynaa mar haddii arrinku yahay janno waa qaadanay bay yidhahdeen oo ballankaan kula gelaynaa ilaahay subxaana wa tacaala intuu janno sifeeyo wuxuu leeyahay ina hada lahuwa alfawz alcadiim limithli hada falyacmal alcaamiluun baa ilahay yidhi ina hada lahuwa alfawz alcadiim kaasi baa ilahay yidhi waa guusha weyn ee limithli hada falyacmal alcaamiluun kaas uun ha u shaqaystaan baa la yidhi cidda rabta inay shaqaysataa amaa cidda khasaartay ee khasaaraha ku dhacday qul ina alkhasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan almubiin baa ilahay yidhi qul dadka waxaad ku tidhahdaa baa ilaahay leeyahy nabi maxamed oo dadka waxaad u sheegtaa calayhi salaatu wasalaam ina alkhasiriin aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalik huwa alkhusraan almubiin kuwa guuldaraystay waa maalinta qolada hoogtuunbaa guuldaraysatay maalinta qiyaame qolada hoogta ayaa guuldaraysatay khasaaro cadna kaasaa ah waxaan leenahay nebiyada dhammaantood way guulaysteen laakiin qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa nebiyadaa guulaystay qaar waa la laayay oo qur-aanku wuxuu sheegayaa nebiyo badan oo la laayay qaarna way xoog bay yeesheen oo ummad badan baa raacdo dowladay dhiseen oo caynkaasi laakiin waxaasoo nebiya bale nebiyadaasi qaar baa waxaa la tilmaamayaa taariikhdu ay sheegtaa inta madaxa laga gooyo in dumar xun loo hadiyeeyey waa nebi madaxii waxaan maanta aynu dhacdo dunida ku arkaynaa taarikhda bini aadamka hore usoo wada mareen maaha wax cusub taarikhda bini aadamku mararka qaarkood baa la yidhaha waa bayjad soo noqnoqdo waxaan oo dhan horaa loo arkay nebi la dilay nebi madaxa laga gooyey nebi la xabsiyey nebi la xidhay iyo nebi la raacay nebi guulaystay nebi xoogaystay intuba taarikhda way soo mareen qur-aankuna intaba uu ka warramayaa reer banu israa'iil maxaa lagu tilmaamayaa fariiqan taqtuluun waa ambiyo ayaa la leeyahay qeybna waa disheen qeybna waa beeniseen nebiyada caynkaasiya fariiqan kadabu wa fariiqan yaqtuluun ilaahay ku tilmaamayo waxaan leenahay dhammaantood waa guulaysteen waayo hadafkii ay u noolaayeen bay xaqiijiyeen qofku inuu dhintaa wax weyn maaha qof waliba uu dhiman laakiin waxa weyna hadafkaad nolosha ka lahayd inaad garato darsigani markaa wuxuu ku kooban yahay eray qura oo ah nolosha waxa lagu qiimeeya miqyaaska aan isla garanno rabbaana inoo sheegay wadaadna kama sugayno cid kalena kama sugayno inay sharaxda qur-aankay si cad ugu taalla ilaahay baa yidhi faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz waxaan ilaahay ka baryayaa subxaana wa tacaala kuwii guulaystay in alla inaga dhigo noloshan macnaheeda cidda fahamtay in rabbi inaga dhigo subxaana wa tacaala hadafka nolosha ka leenayna in rabbi inoo saxo inuguna hanuuniyo صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين